waa muuqaal qaadaya xog ku saabsan dalka Kanada. Dalka Kanada waxa uu ku yaalaa waqooyiga Ameerika, waana dalka labaad ee ugu weyn adduunka, iyada oo dowladda koowaad ay tahay Ruushka. Waxaan ka codsanayaa inta aan daawan muuqaalkan, taaba subscribe haddii aad ku cusub tahay channelkan. dalka Kanada waxa uu xuduud aad u dheer la leeyahay dalka Mareykanka, halka dhinaca barina uu kaga dhigan yahay badweynta Atlantika. Badka uu ku fadhiyo dalka Kanada waa 9.98 milyan, taasoo ka dhigaysa dalka labaad ee ugu weyn adduunka. Dalka Kanada waxa uu ka kooban yahay in ka badan 10 gobol. Caasimadda Kanada waa Ottawa. Magaaladan waxaa ku nool dad gaadhaya 900,000, balse waxaa jira magaalooyin ku hareeraysan kuwaas oo ay ku nool yihiin dad gaadhaya 1,300,000 qof. Magaalada ugu weyn dalka Kanada waa Toronto, waana caasimadda gobolka Ontario, waxaana ku nool dad gaadhaya ilaa 3 milyan, taas oo ah magaalada ugu dadka badan dalka Kanada. Guud ahaan tirada dadweynaha ee ku nool dalka Kanada waa 35 milyan. Luqadaha rasmiga ah ee dalka Kanada waa Ingiriis iyo Faransi. Dalka Kanada markii ugu horeysay waxaa deganaan jiray dadka yimi Hindiya oo asal ahaan ka soo jeeday qaaradda Aasiya, iyo dadka Inuit oo u badan Greenland. Dadkan oo markii ay isdhexgaleen dadkii Yurubiyaanka ahaa, waxay qaadeen cudurro aan hore loogu aqoon waqooyiga Ameerika oo ay wateen dadka Yurubiyaanka sida furuqa, jadeecada iyo cudurro kale. Iyadoo dadkaasi hadda ay ka yihiin dadweynaha Kanada 4%, Kanada waxay ka xorowday gumeystayaashii Yurubiyaanka ahaa 1876. dalkan oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan, waxa kale oo uu ka mid yahay wadamada dadkiisu leeyihiin aqoonta. 51% dhalinyarada Kanada waxay ka baxeen jaamacadaha. Dowladda Kanada waxay ka mid tahay ururo caalami ah oo ay ka mid yihiin Ururka Barwaaqo Sooranka, Ururka Wadamada Dhaqaalaha ku Horumaray ee G20, Ururka Wadamada Ganacsiga Xorta ah ee Waqooyiga Ameerika, iyo Ururka Gaashaanbuurta NATO. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan ha naga ilaawin like. Mahadsanid.